السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب ويب سايت كان ardayda ay wax ka baranayaan magaciisuna halka idinka muuqdo waa website la soo gelinayo koorsooyin kala duwan. haddaan hoos u yara tagno xaggan all courses waa laga heli karaa, laakiin kategoriyo qaybo kala duwan baan u sameynay. 12aadka natural science-ka koorsooyinkiisa xaggan batanka hadii lagu dhufto waa la sii arkay. social science-kana isagana wixii ku jira xaggan baa laga arkay. fasalada 10aad iyo waxyaabo kale oo tiknoolajiyada la xiriiro kuwa badan koorsooyin badan waan soo gelin doonaa insha Allah, laakiin marba waxbaan ku soo daraynaa. 12aadka natural science koorsooyinkiisa haddaan eegno oon ku dhufto wuxuu igeyn inta koorse ee natural science waqti xaadirka ku jirto category-ga. haddaad xaggan fiiriso home baan joognaa, then haddana course category waan sii tagnay 12 natural science baan hadda sii joognaa way ka dhiganta. marka koorsooyinku midabo kala duwan bay leeyihiin. hadday midabkan yeeshaan magacyada xisaab iyo chemistry maadooyinka ay ku kala duwanaanayaan. midabkaas waxa la haddii aad aragto waxay ka dhigan tahay in maadadaas ay tahay maado exercise loogu talagalay oo su-aashii jawaabteedii iyo sharaxaadda jawaabta waxay ku imaatay sharaxayso. tusaale ahaan maadada hadda cusub ee chemistry oo kale haddaan waan geli doonaa, laakiin kuwan kalena aan sharaxaad yar idinka siiyo. English mock exam baa isagana jiro. English mock exam kan waa imtixaan tijaaba oo ardayga si online uu isku tijaabin karo. marka su-aashii uu ka shaqeeyana dhibicdii uu keenayo waa arki karaa. waqti xaadirkan markiiba waxaa kuu soo baxaysa 40 su-aalood oo English ilaa ardaygu wuxuu ku celceshan karaa 10 jeer. waan ka badin karnaa qofkii soo codsado inta in ka badan uu practice gareeyo. marka 40 su-aalood marka hore imtixaanka galaysa 40 muqsiin, mar labaad haddaad ku noqoto 40 kale muqsiin, mar saddexaad sidoo kale 40 kaleeto. haddii koorsadu sidan oo kale Englishka siisoo kale ay noqoto oo labada midab ay yeelato oo waxay ka dhigan tahay short note maadada laga soo diyaariyay way ka dhigan tahay. sidan agriculture oo kale haday tahayna iyadana su-aalo badan oo laga shaqeyn karo oo systemku ku saxayay noqon. marka qaab sawirada waa lagu yara kala garan karaa. hadda chemistry oo kale haddaan galno tusaale ahaan chemistry-ga waa maadadii u dambeysay hadda natural science soo gelino. take this course baad dhahaysaa, kadib continue waa la sii dhihi, waad sii soconaysaa. then sawirka ardayga halkaas u saaran karaa wuu ka bedelan karaa kan hadda saaran. cid walbo oon sawirkiisa bedelan u soo baxayso. waxyar baa la sugi, waxyar marka la sugana qaybta dambe wuu ku geyni. qaybta dambe ay kana xaggan ka soo muuqan doon sida hadda aragtaan dashboard baa horeyso, laakiin ka ugu muhiimsan waa kan courseska ay ku qoran tahay. enrolled courses inta courseed is enroll garaysay iyada xaggaa waad ka arkay. falaadhanba dib u degi kartaa haddaad horey usoo baxdo kale. hadda chemistry maadaamaan dooranay darteed unbuu sii soco kuu lahaa. maadooyinkaas enroll garaysay xaggaa waad ka arkay. haddii maado ay kaa maqan tahay waa all courses batanka waad ka raadsan kartaa. hadda chemistry-gan aan eegno, chemistry-ga markaan saa hadda u furno qaybo kala duwan buu leeyahay. tusaale ahaan unit 1 su-aasha 1 ilaa 10aad oo qaybta 1 haddaan fiirinayno waatana su-aashii baa qoran, optionskii la dooranayay baa qoran, jawaabtii saxda ahayd miday taa qoran, explanation sharaxaad laga bixinaya iyadana qoran. sidaas oo kale su-aasha 2aad, 3aad, 4aad, 5aad saasay u socon. marka 10 su-aalood baa qaybtan ku jirto. markay 10ka ku dhamaato unit 1 oo su-aasha 10aad iyo 24aad waad sii socon kartaa. haddii kale xaggan baad iyadana ka socon kartaa. marka maadaama yara qufulan tahay hadda oo locked tahay, taa hore waa inaad dhammayso ku xigto saa waad u socon kartaa. ilaa 83 su-aalood oo unit 1 ka ah baa waqti xaadirkan chemistry-ga ku jiro. 83 ardayga hadduu isku tijaabiyo wax fiican buu keenayaa. 83 su-aalood waxaa laga soo diyaariyey buugga chemistry-ga ee fasalka 12aad.
buugga chemistry-ga waa 287 page qiyaastii inta hadda xaggan ku jirto. Marka unit 1ka oo ilaa iyo 55 page ku dhamaanayo oo unit 2gii waa 57 markaa kasii bilaaban waa isagana muxuu ahaa su'aalaha laga keenay. Marka unit 1ka bisa laga keenay, unit 2ga su'aalihiisa dib baan ka diyaarin doonaa oo ku sii dabadaraynaa. Unit 3 iyo 4 iyo 5 isagana saas oo kale 5 unit baan cover gareyn doonaa inta imtixaanka qaranka la gaarin insha Allah. waxaan filayaa ardaydeena hadday ka faa'iideystaan wax badan bay natiijo sare ka keeni doonaan insha Allah imtixaanka qaranka. mobilkooda ka isticmaali karaan. mobilka markaad ka isticmaalaysaa markaad dhahdo qaab saas oo kale kugu soo dhigi hoos baad u degi kartaa. haddii aan dib u yara noqono tusaale ahaan all courses waad iska soo enroll gareyn kartaa. koorsooyinkaada kale waad ku celceshan kartaa. aad iyo aad baad u mahadsantihiin.